iminka Somaliland intii ay jirtay ay ahayd taariikh ahaan marka laga soo bilaabo markii dawladii Siyaad Barre ay duntay ee Somaliland ay xornimadeeda dib u soo noqotay 29 sanadood kadib waa xaqiiqo ah shacbiga reer Somaliland inaanay ku filayn madaxweyne iyo sida loo soo dhaweeyaa inaanay ku filayn shirarkii aanu tagnay guul baa laga gaaray inaanay ku filayn hadallo aan sameynahaynin nuxur lagu qiimeeyo ama lagu garto waxay caadaysteen dhammaan madaxda Somaliland marka ay safar tagaan ee dadka ay matalayeen ay u ceelaliye tagaan ama ay shaqo soo qabanayaan marka ay soo noqdaan inaanay wax xoga siinin marka laga yimaado inay yiraahdaan annaga hudheelna nala dajiyay annaga si fiican naloo soo dhaweeyay wax iyaga iyo wixii marka loo qabtay ku saabsan shacbiga reer Somaliland waxa ay jawaab uga baahan yihiin sugayaan arrimahoodii aviation-kii hawadu halka uu ku dambeeyay iyo sida uu yahay waxa ay jawaab uga baahan yihiin sugayaan arrimaha la xiriira socdaalka iyo marka ay safrayaan sidii ay dawladnimo u heli lahaayeen cidda ay ka sugayaan dawladnimadaasina waa madaxda maanta joogta ee mas'uuliyiinta qaranka waxa laga yaabaa inaanay iyagu dhibaatadaasi dareemin laakiin hooyada xanuunsata ee u baahatay in India ama meel kale caafimaad iyo dhakhtar u tagto dhibta ay u marto ama aabaha xanuunsada dhibta uu maro waa waxaynu wada ognahay marka dawladnimada iyo baahida aynu u qabno iyo inta ay leegtahay waxaynu isku wacdeeyno aynu isu sheegayna maaha Somaliland madax badan oo kamid ah madaxdeedu waxay caadaysteen inay dadka majara habaabiyaan inay sawirro been u soo galaan bishan maxaan ku dhahdaa aakhirkii bishii hore ayaa waxaan tagay Brussels dadkii aan la kulmay mid kamid ah oo maxaan ku dhahdaa dadkan oo wax noo facilitate gareeyay waxa uu igu dhaartay inuu arkay madax reer Somaliland oo maalin dhan xarunta baarlamaanka Europe maxaan ku dhahdaa ku meeraysan si ay u helaan fursad ay sawir ku galaan dabadeetana sawirkaasi ay dadka shacabka inta ugu soo diraan ay ku majara habaabiyaan ay been ugu sheegaan Somaliland been kuma dhismi karto aragtida Somalilandna been laguma meel marin karo sida ay hadda tahay beenta ku dhisanna laguma sii wadi karo oo laguma sii socon karo waxaynu ognahay Somaliland siyaasadeeda arrimaha dibadda maalinta ka dambeysay inay hoos u soo dhacaysay barigii hore Janday Fraser baynu ogeen inay Hargeysa timi waxaynu ogeen in madaxweynihii Daahir Rayaale Kaahin uu intaas oo madaxweynayaasha dunida alla soo kulmay waxaynu ogeen sidoo kale Siiraanya inuu isaguna madax badan oo ilaa maxaan ku dhahday David Cameron ka Ingiriisku kamid ahaa uu la soo kulmay arinta Somaliland waxa barigii hore loo oran jiray waa arin u taala Afrika laakiin waxaad moodaa maanta in arintii hoos halkii looga soo riday oo la inagu yiraahdo waa arin u taala maxaan ku dhahday in Soomaalida arin u taala weey halkaasina waxa ay tahay qorshe xumaanteena iyo iska socodkeena iyo xukuumadeena oo aan wax qorshe iyo istiraatijiya oo cad oo arrimaha dibadda aan lahayn wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya sida ay la socono waxa weeyaan waa wax inagu aynu dalbanay caalamkuna uu ka shaqeeyay sida ay wada hadalladaas u dhici lahaayeen markii 2012kii ay bilaabmeen madaxweynaheena hadda jooga ayaan tii dhaweetay oo Addis Ababa tagay waxa la inoo xaqiijiyay oo iyaguna inoo xaqiijiyeen in uu la soo kulmay madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo kulanka wasiirkii arrimaha dibadda markii uu soo noqday ee idinku wada joogteen ee uu hadlayay sidoo uu dadka ugu sheegay iyo sidoo uu dadka ugu waramay waxaan isleeyahay wax dadku geeyaan ma wax shacabkii reer Somaliland ay ka geeyaan maaha wasiirkoodii arrimaha dibadda intuu soo taago inuu yiraahdo xafiiska ra'iisul wasaaraha la sii macsalaameeyay oo la sii salaamayay ayuun baan ku kulannay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia maaha basaskii qarayray la saylada maxaan ku dhahdaa subaxdii dilaaliinta iyo hiliblayaasha si kala haya ay sida
maxaan ku dhahdaa aan ku talagalka ahayn ay isugu soo horbixi jireen deetan isku sii warsan jireen waxa xafiis protocol iyo nidaam dawladeed leh cid aan la isugu talagelin inay sarkaana aanay sarag qol maaha iyo laba qol oo maxaan ku dhahdaa cid kasto soo gashaa isku arkayso markaas waxa ay muujinaysaa in ama waxay qarinayaan oo qarsoon oo ay dadayaan ay jirto amaba waxay yiraahdaan aanay garanahaynin oo qorshe la'aan ay tahay waa laga sugayaa in arintaasi ay sharaxaad ka bixiyaan waa laga sugayaa arintaasi inay daahfurnaan noqoto waa laga sugayaa in shacbiga reer Soomaaliland uga waramaan kulankaas iyo wixii ahaa iyo wixii laga wada hadlay iyo wixii ka soo baxay intaba waxaynu doonaynaa inaynu ogaano ajandaha kulanku muxuu ahaa koow maxaa laga wada hadlayay xaq baynu leenahay shacbiga reer Soomaaliland baa xaq u leh xisbiyada siyaasadda xaq u leh golayaasha kale ee qaranka ayaa xaq u leh waxaynu u baahanahay inaynu ogaano muxuu ahaa qorshaha iyagu ay la tageen balaanka iyo qorshaha ay meesha la tageen muxuu ahaa waxaynu u baahanahay inaynu ogaano maxaa ka soo baxay ee la isla gartay ee laga wada hadlay waxaan u baahanahay inaynu ogaano halkaynu uga dhaqaaqayna halka aynu imika taaganahay wada hadallada kadib iyo saraga kadib maxaa ka dambeynaya ee maxaan ku dhahdaa loo dhaqaaqaya qarankan dantiisa iyo horkiciisa iyo hor socodkiisu sir maaha waa in dadka la wadaago hadii aan wax xun aan la qarinahaynin asalan bana wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya waa inay noqdaan wada hadallo heer qaran lagu hogaamiyo waa inay noqdaan wada hadallo daneeyayaasha siyaasadda iyo gobolada Soomaaliland oo dhami ay ku jiraan oo ay ka dhex muuqdaan waa arin aad iyo aad u muhiim ah waa masiir ummadeed suurtagal maaha inuu madaxweynuhu qof kula soo shiro ama madaxweyne kale kula soo shiro oo kula dhuunto oo marka uu soo noqdana aan u xoga inaga siinin wax midhaaho ay dhalaysaana ma jirto wax shacbiga reer Soomaaliland iyo daneeyayaasha kale siyaasaddu ay aqbalayaana run ahaantii ma aha madaxweynaha iyo dawladdu hogaaminta ay leedahay arinta wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya marka laga hadlaayo laakiin tiisa arin ay kaligood go'aan ka qaadan karaan maaha waa sababta madaxweynuhu hadduu hal heshiis oo yar oo ganacsi xataa soo galo loo yiri baarlamaanka waa inaad geysaan ilaa aad baarlamaanka geyso wax rasmi oo heshiis ma noqonayo macdalla waaba arin masiirkii ummadda oo dhan ah oo maxaan ku dhahdaa ummadda ay doonayso inay warkeeda wada hesho sidoo kale waa inuu jiraa qorshe cad oo lagu waajahayo arinta wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ilaa hadda sida inoo muuqata wax qorshe ah oo cad oo dejisan oo xukuumaddu ay leedahay ma jiro annaguna diyaar baan u nahay xukuumadda inaanu maxaan ku dhahdaa kala shaqeyno oo ka caawino wixii tamarteedii aqoontayada ah habka wada hadalladaasi loo galayo iyo sida looga shaqeynayo maadaama oo ay arrin qaran tahay laakiin tiise arrinteenu waa inay kaleer noqotaa waa inay cadaataa waa inay wax la isla wada og yahay noqotaa waxa xaqiiqo ah maanta arrinteenu waxay taagantahay Soomaali la hadla halkaynu tagno iyo cidaynu tagno iyo cidaynu la hadalaabo waxay tiraahdaa Soomaali la hadla Soomaali sidee baynu la macaamilaynaa su'aasha aynu maanta u baahanahay in laga jawaabo oo dawladdu ay ka jawaabto oo qorshe qaran aynu ka yeelano taaweey taynu u baahanahay inaynu eegno jawaabteenu noqon mayso inay noqotana maaha maxaan ku dhahdaa caytan maxaan ku dhahaa Twitter-ka iyo meelahaasi laga sameeyo taasi macna ay sameynayso waxay soo kordhinaysaa midna ma jirto laakiin waxaan u baahanahay inaynu ummadnimo muujino wanaag muujino niyad wanaag muujino sidoo kalena aynu qorshe cad oo loo wada dhameystiran yahay aynu yeelano aad iyo aad baa mahadsantihiin aad u mahadsantahay su'aasha warsadada weydiiyo أتصور واحد شركة ميدو أفريقيا وزير كارثة دبلتنا وها وشغال إن شركة سوزولا المنيب وها مدحونا على استاد رادي أي ويرين وقلتوا كذا يقال سيدات هو قالتين إن مدحونا أنا لكم من ملاحظة أفريقيا كاية شركة سوزولا أي شيء حديث أي شفتو إن أنا مدحونا عندكم من حملة ساعتها وشعب ملوك أنا كم مدحونا عد بولا كل ما يعد لمو كل من مدنا بما نورنين iyaga laga doonayaa deena cadeeyaan cidii ay la kulmeen iyo wixii ay kala soo hadleen iyo wixii ay kala yimaadeen wax cadeeyno inoo muujinaysa ma jirto maxaan ku dhahdaa meesha laba shir baa ka dhaca
shirshirka guud buu hadda kama inaan qayb gelino iyadu waa xaqiiqo weeye oo maxaan ku dhahdaa de manihin qaran la aqoonsan yahay midna wuxuu ahaa maxaan ku dhahdaa waxaan la yiraahdaa sideline meetingka amaba shirka ka barbar socda shirarkii shirka ka barbar socdayna waynu wada arkaynay oo maxaan ku dhahdaa madaxdii kale oo shiraysa TV-yada laga sii deynayay wararkii sawirada ku arkaysay anu sawiradaana ma arag wararkaana ma arag qolyaheeni sawirada jeclaa madax Afrikaan oo ay soo arkeen la soo kulmeen islamay soo sawirin anigu de ma iibsanay cidii iibsanaysan iyaga u taala وهذا حقيقي مقعد واحد قصة التلفزيون الصومالي كيف بنك الصلاة مدرب حسب وضني واحد يقول إذا أهمها السياسة إن جدة اللي هي إن دولة حمام هسه شيء مدرب نقول إثيوبيا تبي واحد وضع كرمان مدرب دولة البدراك الصومالي على بلاد ماتو أهل تاسك حسبها أنا يتيلك بيدت ما دام الحسب يجينا مدرب بريكا موضشوا أذينا معنا كفردين أنا أقول إنك جواب مدوني لكن مدحوينه maxaan ku dhahdaa uu la kulmi karaa madaxda kale ee Soomaaliya maxaan ku dhahdaa waa madaxweynihii qaranka laakiin tiisa waxa laga hadlay waxa weeyaan wuxuu kala kulmay maxay tahay muxuu kala hadlay halkee baynu halka uga dhaqaaqnaa run ahaantii hadalkaasi waan dhageysanay marka arto arinta Soomaaliland wixii ka dhacay de dambi dagaal iyo maxaan ku dhahdaa in arin aad iyo aad u foolxun oo dawladii dictatorka ahayd ee kale taliska ahayd ay geysatay ayay ahayd run ahaantii waxaan aragnaa inay tahay talaabo wanaagsan inay bilaabayaan madaxda Soomaaliya inay arintaasi qiraal ka keenaan laakiin arrimaha qaar kood marka laga hadlaayo waxay leeyihiin arabixino caalami ah oo lagu yaqaano waxaan rajaynaynaa inay wada hadallada qayb ka noqon doonto apology-ga ama raaligelinta Soomaaliland la siinayaa arabixin nooceeba yeelanaysa waxyaabaha laga wada hadli doona ay noqon doonto laakiin inuu madaxweynaha Soomaaliya sheegay inuu ka xun yahay waxa weeyaan waa talaabadii ugu horeysay oo wanaagsan wixii inta ka dambeeyana waxaan rajaynaynaa in wada hadallada ay ka soo bixi doonaan in sidii loo la faguri lahaa ee loogu sameyn lahaa eray bixinta caalamiga ah ay leedahay wixii halkan ka dhacay magaca khalas su'aal xusaatii gabadhaas intii kulmay labada madaxweyne oo Musabbix iyo Farmaajo xisbiga laba jeer ku ka hadlay oo hadda laba kulmayso ma laga yaabaa in labada madaxweyne ay arrimo culus ka wada hadleen jawaabta xukuumadda inuu ka dhacsan waxaan u maleynayaa markii ay soo noqdeen waxay ahayd 48 saacadood wax ka badan wasiirkuna uu ka hadlay saxaafaddu markii ay fursad maxaan ku dhahdaa haysatay in su'aalo ku weydiisana uu ka dhaqaaqay maxaan ku dhahdaa isagoo runtii ka faa'iideysanaya in idinkuna aydan organizer ahayn taasuu ka faa'iideystay laakiin tiisade wixii uu doonayay meelaan rabay maxaan ku dhahaa roobmaygu eriyay la oran jiray Soomaa inuu saxaafadda ka dhaqaaqo inuu waajihin buu doonayay hadduu doonayay saxaafadda inuu waajaho inamadu intay magacyadooda sheegayaan wuu iska sugi kari lahaa idinkuna in magaca ku dabaqdaan ma ahayn in su'aasha ninka weydiisaan bay ahayd adigu waad weydiisay cid kale oo aan fursad helin ما لو أردت أخذ بدو هو وين مدحوينه في حي كوضع هذين هاي نمط هذا كاس مرات دهدان مدحوينه bay noo waramin ilaa inta uu madaxweynaheenu inoo waramayo maxaan ku dhahday hadalkaasi macnaha uu yeelanaya waxa weeyaan waxyaabaha ay ka wada hadleen inay kamid ahayd in raali gelinta la soo bixiyo aad baa mahadsan